madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dib ugu laabtay magaalada Boosaaso xarun ganacsiyeedka Puntland waxaana madaxweynuhu ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay inta uu safarka ku jiray Yuusuf Cabdi Shire ayaa warkaasi waxa uu nooga soo diray magaalada Boosaaso madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo safarkiisa ku heliyeen xubno ka tirsan golaha xukuumadda ayaa gelinkii dambe ee galabta dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Boosaaso cuqaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweynaha ayaa soo dhaweyn kadib tagay xarunta madaxtooyada ee Boosaaso halkaas oo warbaahinta kula hadlay madaxweynuhu wuxuu sheegay in dawladda Imaaraadka Carabta ay kala hadleen arrimo ay ugu muhiimsan yihiin mashaariic laga fulin doono Puntland kuwaas oo uu sheegay in dhawaan rajeynayaan in la ambaqaado waxaan sidoo kale dawladda isutaga Imaaraadka Carabta aan ka codsanay in mashaariic dheeri ah ay ka hirgeliyaan Puntland gaar ahaan dhanka waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la mid ah guul baan rajeynaynaa insha Allah iyo mashaariicdaas inay soo taraan waqti aan dheerayn dabcan dhanka kalena haddaan meesha tagay dabcan wixii shidaha u jira waddanka Soomaalidu qabaan inaan wixii igaga aadan ka mas'uul ahaan inaan wax ka iraahdana kullu waxaan manayaa way ugu habboonayd wixii aan ka irin karina waan ka iri wixii wanaag ah oo la isugu soo dhaweyn karo Soomaali iyo Imaaraadkana wixii naga aadana koofdi ahaan waanu ka niri insha Allah dadku isqabad kasta oo yimaada waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo xal fiican in loo helo sababta waxa weeye dal iyo dad aanu kala maarana maaha waxaan aad iyo aad uga tacsiideynayaa dadkii ku dhintay saraakiisha ku dhimatay gaalkacyo oo shiroodayaashu ay dileen oo ugu horeeyay xoreeye taliyay ciidankii isku dhafka ah ee ka shaqeynaya magaalada gaalkacyo runtii shaqo fiican ka hayay Allah u naxariisto la meel fiican hageeyo waxa weeye waxay u dhinteen shaqo qaran bay ku dhinteen u tacsiideynayaa ummadda reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba iyo qoyskii ay si gaar uga baxeen aad baan ugu tacsiideynayaa saraakiishaas askarta dhimatay sidoo kale waxaan rabaa inaan runtii aan wax ka iraahdo arintii biyihii iyo fatahaadii wabiga ee magaalada Beledweyne oo runtii dhibaato weyn u geysay gobolkaasi dabcan baaq baan ka dirnay anoo ku hadlay magaca dawlad goboleedyada beesha caalamkana aan u dirnay dawladda Soomaaliyeed aan u dirnay in dadkaasi lala gaaro taageero iyo macaawino degdeg ah ugu dambeynna madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hambalyo u diray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kaas oo maanta ay xildhibaanada golaha shacabku ku doorteen doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho sidoo kale waxaan u hambalyeenayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Mursal waxaan rajeynayaa inuu gudoomiyuhu noqdo gudoomiye hogaamiye fiican u noqdo baarlamaanka isu keena baarlamaanka